السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan doonayaa maanta inaan ka hadlo xaaladda guud ee wadanka gaar ahaan laba arrimood oo runtii aad iyo aad u kooban xilligan oo kale marka roobabowga dadka reer Hargeysa way cawdaan waxiliyada Hargeysa ay ooydo waxiliyada Hargeysa ay aragto maamulkoodu sidii yahay iyo maayarkoodu sidii yahay waxiliyada Hargeysa ay cabato Hargeysa mushkiladda haysata waa maamul xumo waxaan ognahay in dib u dhac weyn oo magaaladeena ka jiro haddaad eegto wadooyinka haddaad eegto nadaafadda haddaad eegto adeegyada kale ee bulsho ee caadi ahaan dawladaha hoose ay fuliyaan waxa ku soo baxaysa magaalada Hargeysa inay tahay magaalo cadilan oo run ahaantii dhibaataysan waa cadilnaan iyo dhibaato ay iyadu isbaday waa cadilnaan iyo dhibaato cidii loo dhiibay ee loo igmaday ee dadku ay ku aamineen ay baday Hargeysa gaajo boqolkiiba 730 baa lagu tilmaamaa dadka Hargeysa ku nool inay gaajaysan yihiin gaajada waliba khatarta macnaheedu waxa weeyaan marka la leeyahay gaajada khatarta waa dadka ku nool maalintii $1 iyo 25 senti wax ka yar ayaa gaajo loo yaqaanaa waxa run ahaantii aynu ognahay dadka reer Hargeysa inay cashuur bixiyaan oo ay cashuur bixiyaal yihiin laakiin tiisi cashuurtaasi aanay wixii ay mudnaayeen aan loogu qabanin waxyaabaha run ahaantii aad ka damqanaysa aad arkayso ee muujinaya qorshe xumada han la'aanta iyo hoggaan xumada waxa kamid ah wadada dhexe ee Hargeysa haddaad soo dhex marto subaxyada qaar subaxda hore aad soo marto waxaad arkaysaa askar baabuur iyo bureer sidata oo dad masaakiin ku tacadiyaysa waxa laga yaabaa aabbo ama hooyo 7-8 caruur gurigii kaga timi oo baahan oo faqrigaas la tacaalaya oo kaariyoono yar ku soo shaqo tagay in si arxan darra askari aan anshax iyo tababartoona lahayn uga daadiyo dadkaas iyagoo ooyaya cabanaya oo calaalaya dabadeetana aad arkayso iyagoo wadada yaacaya oo balas leh waa laga tagaayo saacad kadib wadadii haddana sideedii bay ku noqotaa subaxun baa la soo seexdaa la yiraahdaa baritaan wadada banayno tii aan qorshe loo sameeynin dadkaasi meelaha ay ku ganacsan lahaayeen loo sameeynin noloshoodii sidii u dabaran lahaayeen loo sameeynin dadka dhibaataysan ee reer Hargeysa meeyarka mas'uuliyad baa ka saaran madaxweynahana mas'uuliyad baa ka saaran malaha madaxweynuhu markuu baxayana de wadooyinka la xidhaa wadada uu marayana waa la sii xaadaa laakiin marka Hargeysa roob helo waxaad arkaysaa Hargeysa inaanay magaalo noloshu aad u adag tahay ay tahay oo kala xidhan dadku aanay isu socon karin ganacsiga dhibaato weyn ku haysa dhaqaalihii magaaladana dhibaato weyn run ahaantii ku haysa xashiishku markuu biyaha dhex galay oo dul fuulana cudurro ayaa ka dhasha oo ka dhalanaya maanta kama rajo qabno in intu maayarku dib u dhasho Hargeysa hagaajiyo kama rajo qabno in madaxweynuhu uskeeno qorshe iyo balaan uu maayarkani ku shaqeeyo oo uu Hargeysa ku hagaajiyo kama rajo qabno dawladda hoose maanta joogtaa inay wax bedesho laakiin doorasho soo socota mar labaad baa shacbiga reer Hargeysa la siinayaa fursad ay cidii iyaga matali leeyahay magaaladooda ka shaqeyn lahaayeen doortaan hadhow intii aan ooy lahayn aan caban lahayn aan calacali lahayn aan taa u meel dayno oo aan eegno oo aan ka fiirsano barbara ayaan maalin dhaweyta tagay haddaad reer Hargeysa tahay oo aad barbara tagto waad hinaasaysaa runtii sidaa weey waxaad arkaysaa waxa yar ee ina soo gala hadii la isiraahdo wax ku qabta oo ku shaqeeya in nolosha wax ka bedeli karayaan in wadooyinka wax ka bedeli karayaan in dadku sidii u nool yihiin wax ka bedeli karayaan caruurta yar baa arkaysa farqiga Hargeysa iyo u dhaxeeya barbara marka ay barbara tagaan calaamadihii wadooyinka hadda bilaabeen inay sameeyaan Hargeysana maanta waad aragtaa oo ka cashuur badan oo ka dhaqaale badan oo ka population badan oo dadkeedu maanta halka ay taagan yihiin iyo noloshii siday tahay tusaale yar waxa kuugu filan waxa jirta shirkad
biyaha magaalada maxaan ku radaa biyo balaarinta magaalada Hargeysa ka shaqeysa wadooyinka in aragteen mooyana way wada qodaa ciidiyo tuulan bay wadada kaga tagtaa waxay ku tusaysaa mas'uuliyad darrada dawladda oo saalka taagantay inay xataa tahli kari waayeen inay shirkadaasi siiyaan instruction iyo nidaamkii markay meesha dawladdu ay qodaa dib ugu hagaajin lahayd ciidiyo tuulan markuu roobkii ku daayna waa aragteen sida ay tahay ee ay noqoto Hargeysa waxaan leeyahay inta ay ooy lahaydeen maanta fursadaasi mar labaad dib uga fakara arinta labaad ee aan doonayo iyadana inaan wax yar oo kooban ka idhaahdo waa arinta dhaqaalaha weeyaan maanta dadka inta ogiyay in kala aanu waruma hayo laakiin tiise hoosta ayuu dhaqaalaheeni ka musallafaya wadankii dhaqaale xun ma aad iyo aad u badan baa jirta ganacsatada yar yar haddaad u tagto aad wareysato ganacsiga kacaya uu tirabeela inuu ganacsi abuurma iska daayay waxa aasaas u ah dhaqaale xumaanta dawladnimada marka la dhisaayo hay'adaha dawliga ah ee saameynta ku leh dhaqaalaha inta badan laba hab bay dunida noqdaan hab waxa la yiraahdaa waa extractive habna waxa la yiraahdaa inclusive waxa weeye marka shaqada xirfad loo eego ee aqoon loo eego ee karti loo eego ee hufnaan loo eego ee dadnimo loo eego marna waa marka shaqada loo eego qabiil shaqada loo eego shaqada loo eego dangaara institutionkii dawladda extractive buu noqonaya dabadeetana uu nuugmaya wala nuugaya rida iyadu isjaqda maxaad ku taqaanaa ilmaheedu ma koro dawlad institutionskeedii dadkii ka mas'uulka ahaa ay nuugayaan oo contractkii ka soo baxa meel uu maray aan la arkaynin waxa weeyaan run ahaantii institutionskaasi markaa waxay sababeen laba tusaale oo waaweyn baan idin siinaya waxaynu ognahay diyaaradihii fly Dubai iyo Al Arabiya inay xidhan yihiin ilaa iyo March ay xidhan yihiin sabab aliyaala sabab cad ay u xidhan yihiin oo xukuumaddu dadka intay hor keentay ay u sharaxday ilaa iyo hadda oo aynu ognahay ma jirto shirkadaha xidhan dibkoodu dadku taabanaya shacbiga reer Soomaaliland buu taabanaya dhaqaalaheenu taabanaya waayo sababtoo ah shirkadahan waxay noo ahaayeen gateway waxay noo ahaayeen shirkado international ah oo aynu adduunyada markaynu tagaynaynu u gooshayno aynu isticmaalno monopoly bay abuurayaan in hal shirkad oo kaliyaati ay wadankeena ka shaqeyso deetana tigirka waxay doontaa ay ku tiraahdo adeega sidii doontaa ay kula macaamusho sidii doontaa ay ka yeesho adiguna aad ku qasbanaatay inaad yeesho waxa weeyaan darxumo iyo maxaan ku raad dulinimo inagu aynu dadkeenni badan aynu ku qasbano inay u hoggaansamaan hal shirkad waxa ay doonayso ay samayso taa waxa ka daran dawladaha mas'uulka ah ee damiirkoodu nool yahay markay shirkadi kacayso ayay shirkadda taageeraan in lacag siiyaan sababtu waa maxay waxay ka fakaraan dadka shirkadda u shaqeynaya ee shaqo beelaaya shaqada ay dadkaasi hayeen dhaqaalaha wadanka intay soo gelinayso ilaan dhaqaaluhu waa circle ka wareegaya tire ka wareegaya weey maanta dad 100 qof ka badan oo shirkadaha u shaqeynaya baa shaqala oo amal ah dad 8,000 oo qof gaaraya oo tigidh ka haystay labada shirkadood ayaa meelaha kala duwan ee adduunka ku xaniban dadka waxa kamid ah dad taag daran oo dhakhtar tagay ama India ha tagaan ama Turkey ha tagaan ama meel kale ha tagaan oo markii halkan adeeg caafimaad loogu fidin waayay oo dawladooda ay u fidin kari weeday inay xanuunada yar simbalka wixii ay ku dawoobi lahaayeen iyo dhaqaatiirta ay u samayso si kastaba ha ku kaliftay tagay inay maxaan ku dhahday wadamadaasi ay caafimaad u tagaan dadkaasi waxay u xaniban yihiin qaar badan oo kamid ah oo wadankoodii ku soo noqon lahaa waxay tigidhs kaga bixiyaan beelay dawladdu xataa kama fakarayso dadkaas sidee baa dalkoodii ugu soo celisaa malaha ma dareemayaan oo madaxweynuhu ma oga dadkaas inuu isagu mas'uul ka yahay oo ay dadkiisa yihiin dadkaas waxa kamid ah dad wallahi masaariifti ka gooday oo duruufti ku nool yihiin inay dawarsadaan yar u jiraan dawladnimadu dadka diyaarada gaar ah u diraydo way soo kaxayn leedo way soo qaadi leed si ay dadkooda u yimaadeen waxaad isweydiinaysaa
damiirka iyo dadnimada sidaa u dhaqmaysa magaceedu waa maxay waxaad isweydiinaysaa dawladnimada noocaas ah sidaa sameynaysa magaceedu waa maxay waxaad isweydiinaysaa siyaasaddaas iyo dawladnimadaas magaceed anigu runtii wax aliyaala waxaan ku tilmaamo oo aan u bixiyo ma garanayo tusaalaha labaad waxa weeye waxaynu ogeyn in xarkaha internetku monopoly muddo dheer ay wadankan ahaayeen sida aan la socono baarlamaanku waxa uu ansixiyay in xarkaha monopolyga laga saaro sidoo kale madaxweynuhu xeerkii buu saxeexay laakiin tiisa bartii baa lagu hakiyay oo maxaan ku raadayay lagu joojiyay aqli sharaxaya oo fahmi karaya ma jiro inagu noqon karna wadan xarkaha internetka dhoofiya oo Ethiopia u dhoofiya oo Kenya u dhoofiya oo East Africa u dhoofiya oo wadamada landlocked-ka u dhoofiya inaynu inagu ilaa Djibouti dhulka soo marsano tiyo berbere halkan taagan tahay waxyaabaha marka aad u fiirsatay aad isweydiiso aad oranayso malaha wadankani inuu dumo oo baabao waa la qorsheeyay oo waa loogu talagalay sabab ilaa imika dadku waxay moodayaan siyaasadda Soomaaliland inay ila meerayso ku jirto dhaqaalihii baa ila meerayso ku jira ganacsigii baa ila meerayso ku jira issue kasta oo maanta wadankeena ka taagan waa baari kartaan oo waa eegi kartaan circle-kaas ku jira oo ku wareegay maalin war wanaagsan laga sheegaya maalinta labaad war xun laga sheegaya maalin meel fiican bay marsaa la oranaya rajo la yara abuuraya maalinta dambe haddana waa la joojiyo waa la diiday aad maqlaysa waxaynu maraynaa in wasaaradii isgaarsiintu ay shirkadihii isgaarsiinta ee wadankan dhismaha ay ka geysteen iyo dhaqaalaha ku maalgeliyeen iyo maxaan ku raahdaa inta qof ee ka shaqeysa iyo sidee markay mushkilad timaado wadanka ay ugu gurmadaan aynu ognahay in maanta shirkadihii waraaqaynta loo soo qoro la yiraahdo qalab ma soo iibsan kartaan ilaa iyo war dambe taa macnaheedu waxa weeye maanta hadii qalabkooda wax ka mid ah uu jabo awoodu ma laha inay soo iibsadaan lagama fakarayo saadku system buu ku shaqeeyaa tusaale ahaan qayb weyn buu ka yahay mobile money iyo dhaqaalaha wadanka maanta systemku ku shaqeynaya haduu fadhiisto oo jabo awoodu ma laha inay si toos ugu soo iibsadaan ama dahabku sidoo kale waa labada platform ee ugu waaweyn ee maanta lacagta Soomaaliland ay marto ee dadku ay transactions ka dhaqaale ku kala sameystaan bal udinku ka waramo oo u magac bixiya xaqiiqadu waxa weeye Soomaaliland hadii cadaalad darrada laga deyn waayo Soomaaliland hadii qaraabo kiilka iyo eexda laga deyn waayo Soomaaliland hadii xeerarkeeda la ixtiraami waayo iyo heshiisyada maxaan ku raahdaa bulshadu ay wada gashay ay leedahay xaqadu waxa weeye inay badbaadadeedu khatar galayso waa run weeye ma waxaan waan iska leeyahay waa waxay taariikhdu sugtay weeye taariikhda raac meel kasto cadaalad darro ka jirta waa duntaa madaxweynaha waxaan soo jeedinaynaa inuu wadanka sidan u dhaamo inuu mas'uuliyadda saaran dareemo inuu dadkaasi masaakiinta ah ee taagta daran ee hargeysa ku gaajoonaya ee intay ku dhakhtar waayeen haddana si ay ku heleen bay Ilaahay og yahay tigirka ee haddana tigirkoodii xaniban yahay haddii dana kala shirkadaha loo haysto haddii ujeedooyin xunxun ay ka dambeeyaan dadka hartu koowin sidii loo soo qaadi lahaa laga shaqeeyo shuruucda wadankana la ixtiraamo wadankan dhaqaalihiisu waa dhaqaale furan aan la isku dayn dhaqaalahan in dad gaar ah laga naasnuujiyo inta kalena faqriga lagu hayo waa mahadsantiin